ciidamada Puntland ayaa howlgal qorsheysan ku qaaday gobolka Sanaag ee gobol Puntland. Ciidamada Puntland ayaa guulo horle ka gaaray dagaalkii ay la galeen maleeshiyaadka SSC. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee PIA-da Puntland ayaa shalay waxa ay weeraro xooggan ku qaadeen saldhigyo ay halkaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka SSC. Militariga Puntland ayaa waxa ay gaareen gobolka Sool waxaana ay markan ku sii jeedaan degmada Lascaano. Sawaariikhda ayaa laga maqlayay goobaha uu dagaalku ka dhacayo waxaana lala wareegay gaadiid xooggan oo hubka noocyadiisa culus. Ciidamada Puntland ayaa la dareemayay iyagoo kusoo qulqulaya deegaankaasi. dhowaan ayay ahayd markii tababar loo soo xiray guuto ka tirsan ciidamada difaaca Puntland waxaana ciidankaas oo wata qalabkooda oo dhammaystiran ay ka mid noqonayaan howlgalka Puntland waxaana ay saaka ay gaareen deegaanka uu dagaalku ka dhacay si ay u bedelaan ciidamada commandos-ka Puntland oo shalay oo ka dagaalamaya deegaankaasi. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa laga dareemayay iyagoo oo dul heehaabaya goobihii uu dagaalku shalay ka dhacay si ay u ogaadaan halka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka SSD. ciidamadan Puntland ayaa waxa ay bilaabeen markan in ay dib u soo celiyaan deganaanshaha shacbiyadda ee deegaanada gobolka Sool ee Puntland. dowladda Puntland ayaa waxa ay ku howlan tahay sidii ay u soo celin lahayd nabad ku soo celinta gobolada Sool iyo Sanaag ee Puntland. Assalaamu calaykum. waa ku dhawahay Hussein Media. waxaan dagaaladii aan ku qaadnay gobolka Sool waan ku guuleysanay haddii aan nahay dowladda Puntland iyo ciidamadeeda. shacbiga Puntland mar walba waxay la garab taagan yihiin